السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامج كاران ندين كسو ديارني مناسبة بلارن oo lagu qabtay magaalada Oodweyne taasoo deeq ay soo direen jaaliyada reer Oodweyne ee dalka UK si rasmi loogu wareejiyay gudoomiyaha gobolka Daadmareed. deeqdan oo isugu jirtay qalabka isboortiga iyo agab caafimaad oo uu leeyahay isbitaalka guud ee magaalada Oodweyne ee daawasho wacan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xaflad waxaan ku bilaaban doonaa halkan in xafladan qaaliga aynu joogno goorahan baa wada suganay xafladaas in maanta kula wareegayno in kala wareegna jahliyada in Ingiriiska ee reer Oodweyne qaar kamid ah ay noo keeneen in iyo qalab sports runtii waa xaflad aad u qiimo badan anigoo ku hadlay afka wasaaradda caafimaadka oo aan imika joogno isbitaalka Oodweyne waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa jaaliyada Ingiriiska ee noo keentay qalabkan isbitaalka ay u keentay oo afraashidan iyo maxaan ku raahdaa iyo barkimooyinkan iyo alaabo badan oo kale aad baan ugu mahadnaqaynaa jaaliyada Ingiriiska ma aha imika kaliya markii wax noo keentay rajo badan baan hore uga qabnay markana wayna soo gaadhisay jaaliyada reer Oodweyne iyada Norway ayaan iyadana maxaan ku raahdaa iyadana si fiican oo shaqayn jiray Axmed Cali Madar iyo gruubkiisa oo isaguna xiriir fiican oo nala sameyn jiray maantana jaaliyada Ingiriiska reer Oodweyne ayaa qalabka noo keentay aad baan ugu mahadnaqaynaa jaaliyadaha kale reer Oodweyne iyagana waxaan ka codsanaynaa in ay ku daydaan maxaan ku raahdaa ay gobolkooda soo dhisaan isbitaalkooda soo dhisaan iskuul waxbarashadooda soo dhisaan oo sidaas oo kale ay noola soo shaqeeyaan aad hadan wasaaradda caafimaadka nahay aadna waxaan ugu mahadnaqayaa inta noo keentay alaabtan Sahra Faarax bulbul aad baanan ugu faraxsanahay waxaanan كوصلنا هذه إفن وحكله أينو حلنا ينو كنان تفيعن وشغينو استاقنا إن شاء الله ونقضو استال هذا دقموين كوجو محيطي ونأكسن إنك سواء أنه هاي سنين وحيالو أي استالك على هايستان لكن وانا لكو بالانقاضي دولتنا حاجة وانا لكو بالانقاضي وانا نكفلينا waxaan filaynaa in degmooyinka kale laga yimaado in Oodweyne loo yimaado caafimaad ahaan inanta sharafta badan marwada Saada Faarax bulbul oo nooga keentay cariga Ingiriiska aaya badan oo u baahan yahay gobolka maxaan ku raad Daadmareed sida sports oo kale maxaan ku raad dhakhtarka dayactirkiisa haday tahay sariirihii furshaantoodii haday tahay gooyaal hadii ay tahay barkimooyinkii bukaan jiifka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi saadoy waanu ka gudoonay kal iyo laabaanu kaaga gudoonay adigoo noo soo maray safar dheer adiga iyo intii kale hawshan kula lahayd bana hambalyo iyo boogaadin baanu hawada u marinaynaa salaanta kadib baahida gobolka marka aan ku taabto tan waa soo awdeen baahiyo badan oo saarshay baarka iyo shaqaalaha gunadiisa hawlo badan way yaalaan waxa kale oo u yaala jaaliyada reer Soomaaliland meel kasta ay joogan haday qoladii iswiilana awalba sports wax ka qaban jirtay tahay iyo haday idinka oo maanta nooga yimi cariga Ingiriiska ay tahay waxa la doonayaa boardingkii in la nooleeyo iskuulkii inuu waxbarashada waa iskuulkii madaxweynayaashii dalka Soomaaliland ay ka baxeen maxaan ku dhahdaa haduu yahay Axmed Cabdiraxmaan Axmed Cali Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal wasiir kasta kuwa maanta Soomaaliland ka shaqeeya hadaba idinku hawsha koobaad waxa ka gashaan boardingka gobolka Daadmareed oo aan ku rajo weynahay inaan wax nagala qabataan 3 bilood ee hadii Ilaahay ka dhigo fasaxa oo isaga oo furan oo maxaan ku dhahdaa caqiiba leh la isugu yimaado magac iyo manfac waa ku yeelanaysa Saada Faarax bulbul waxaan ku gudoominaa qalab sporti iyo waxaan oran karaa labadii wasaaradood ugu muhiimsanaa oo dhalinyarada mid tahay midna caafimaadkii tahay ay maanta qalab u keentay jaaliyada Ingiriiska ay soo gudoonsisay
oo iyada loo soo wakiishay saado way nala soo halgantamaan oon karaa runtii weliba dhallinyarada waa wakhtigoodii oo waxaanu taagannahay wakhtigaanu ciyaaraha aanu gelaynay waxaan odhan karaa xagga dhallinyarada haddii aan waxay ka taabto sidii sanadkii hore maaha waxaanu ku soo kordhin dhallinyarada waxyaalo badan niyadjabkii qurbajooga ka qabsaday sanadkii hore oodweyne meeye oo sanadkan heer wanaagsan aanu rajaynayno halka ugu wanaagsan aanu gaadhsiin doono insha allah wax badanna way isbedeleen waxa kaloo intaa dheer aan ku darayaa saada waxay noo keentay qalab isku dhan shandadihii kabihii dirayskii kubadihii waxa kaloo inoo keentay qalabkii orodka waxaan u mahadnaqayaa jaaliyadda ingiriiska ee inoo keentay alaabtan caafimaadka iyo isboortska isugu jirta waa u mahadnaqaynaa 100% waxaanu leenaynaa halkaa ka wada waxaase jirta matalan ayaantii dhaweeda 18 mayl la marayay waxaanu ahayn anagu wasaaradda waxbarashada haddaanu nahay 2 wasaaradood mid waxay ahayd wasaaradda waxbarashada ta kalena waxay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha uniforms aanu haysanay oo direyska ciyaaraha oo ay noo soo direen oo u mahadnaqaynaa jaaliyadda reer Norway ama Scandinavian kaba haddaan idhaahdo saddex waddan la isku idhaahdo waxaanu siinay qayb naga mid aanu labisto idinkuna ku maraynta marka intana noomay oolin maantana haddii intan la keeno waa ilaahay mahadii isuduweyna waa kan fadhiya aadna waan uga naxay runtii marka waxa wanaagsan iyadoo si fiican wax loo soo taro maxay ahayd toy dhakhtaradoodu ma shaqaynayaan waxa ka shaqaynayaana aad bay u yar tahay marka anigu waxaan odhan lahaa dadka qurba jooga ah saynu moodayna ma aha aad bay u liidataa runtii waxyaabo badan baa ka dhiman oo tuulayo magaalooyinka kale la midkaa aad bay uga liidataa runtii waana la dhaafay marka insha allah bismillaahi kariin way soo gaari doontaa haddii ilaahay ka dhigo waxaa noo farxada maanta runtii wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo wasaaradda caafimaadka runtii waxay marayeen maalintii ugu baahida badnaayeen waynu ogsoonnahay qayladoon badan baa halkan ka dhacday oo runtii ku wajaaleed caafimaadka waxaa laga qabto waxaan maanta iyaduna ku soo beegatay maalintii 13 gobol ee Soomaaliland ku tirtamayeen koobka gobolada Soomaaliland oo runtii iyaduna baahi weyn noo haysay in agab intan leeg loo helo baahda sportska waxaan laakiin runtii isweydiin leh reer Oodweyne jaaliyad ma leeyahay mise ma laha uu leeyahay Soomaa sababtoo ah in badan baa ogsoonahay inay reer Oodweyne maqan tahay waxaan dalka UK ka jira urur la yiraahdo Oodweyne Foundation saaray waxba lagama hayo xataalaan UK magaca ugu weyn wuxuu haystaa Oodweyne Foundation ina website-yada gashaan baa umaleynaya waayo wax isweydiinaya qofka reer Oodweyne Foundation waa maxay waa inay kaalin muuqata ka qaadato taasoo doonayna maanta inaanu ka bedelno bal wajigii hore ee saadana hurmuud u noqoto jaaliyadda UK waxaan isagana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xukuumadda hadda talada dalka haysa runtii haddaanu nahay maamulka iyo shacabka reer Oodweyne waxaan ugu mahadnaqaynaa sababtoo ah intuu kulmiye jiray in cisbitaalkeenu furnaa ama ha yaraada ama ha iska daayay intuu xukuumadda talada dalka haysa jirtay ayuu cisbitaalkeenu furnaa taasna waxa loogu mahadnaqo xukuumadda hadda talada dalka haysa waxaan isagana sidoo kale ugu sii mahadnaqaynaa Dr. Ibrahim oo runtii door muhiim ah ka qaatay baahida caafimaad ee deegaankeena taala oo runtii habeenkii u guureeya gooraha xun u kaca oo runtii naga mudan inaynu ixtiraamno inaynu dhammaanteen la shaqayno runtii taasna wataan runtii waxaan iyadana aan xasuusinayaa waddada isku xidha Oodweyne Burco iyo Hargeysa runtii way socotaa kaalin muuqatay ka qaateen qurba jooga u bataan hablaha weliba dee rag lagama haya lacag dumarku ma laga hayaa waxaan leenahay waddadii way socotaa guntiga dhiisha la iska xidho ha loo ururiyo $1 ha loo looriyo 5 pound si aynu u dhammaystirno horumarka deegaankeena oo ku aadan tahay kuna xidhan tahay waddada isku xidha gobolada bariga iyo Togdheer iyo gobolada Maroojoox iyo Oodweyne runtii taasina runtii dawladda hoosena imka waxay gacanta ku haysaa
4 kilomitir oo xagga dhinaca bariga iyo 2 kilomitir 1 kilomitir iyo badh daamura oo runtii markii koowaad ee dawladda hoose iyo shacabka iyo sanadkan waxaan ku darnay dawladda hoose waxay ku dartay 4 kilomitir oo aan runtii rajaynayno inay ceelxuma gaadho runtii taasna waxay muujinaysaa golihii 28 November aad doorateen siduu ugu heelan yahay golihii 28 November aad doorateen wuxuu halka ka cad siduu ugu heelan yahay inuu xaqiijiyo horumarka deegaanka runtii waxaa dayactir weyn ka muuqday wadadan oo runtii ugu mahadnaqayso kontraaga cabdiraabi oo runtii isaguna muujiyey bilicdii wadada isku xidhaa laamida horteeda dawladda hoose oo runtii aan hore laami loo mooday laakiin maanta asaar wada leh runtii taasna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii waxaan leeyahay haddii qalab la'aan nahayn jirtay maanta qalabkii isboortiga wax naga maqan ma jirto waa kuwii ugu qaalisanaa ee ingiriiska lagaga ciyaarayey qalabka naloo keenay waxaanan rajaynaynaa inaannu kaalin mug leh aanu ka galno ciyaaraha gobollada jaaliyaddeedana waxaannu ugu bushaaraynaynaa sidaa isuduwaha ciyaaruhu ugu hanjabay halkan inaannu ka dhabayn doonno oo aannu kaalin mug leh koobka sidaan ku keeni lahayna falowgeed geli doonno haddii aan la yidhaahdo kabahaasi waa kabaha ay ku ciyaaraan xulalka ugu waaweyn ee ingiriiska ma yaallaan somalilan ma yaallaan marka cagta ayay la socotaa ciyaartu waananu qaadaynaa koobka insha allah xagga caafimaadka sanadkii hore waxaa oodweyne looga badiyey runtii isuduwo ciyaareed may lahayn laakiin maanta isuduwihii wuu joogaa garsoorayaashii iyo tababarayaashiiba way joogaan ciyaaryahankii waa ciyaaryahan aad u fiican oo la tababarayay muddo oonu ku kalsoonnahay ciyaartooda waananu ka guddoomaynaa saado faarax bulbul qalabkan hablaha qalabkan ka soo shaqeeyey iyo dhammaan jaaliyadda ingiriiskana waxaannu u diraynaa hambali iyo bogaadin kulli waa wada mahadsantihiin rag iyo dumar marka waxa weeye iskuulka waxaana loogu yidhi dadku waxay ku dhigtaan daasad caananido laakiin imika waxa yaalla kuraasay laakiin qalabkii kale way ka wada maqan yihiin barhka badan marka waxa weeye alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dee waxa cidna uma maqnaa ceella uma qodna baa layidhi waxaana u maqan unta dadka dibadda waxaan doonaynaa si fiican haddii ilahay ka dhigo inaynu usoo caawino wanaanu soo wada sawirro wanaydun arki doontaan haddii ilahay ka dhigo dee wixii kale u baahdaana waa arki doontaan waynaynu isu iman doonaa insha allah bidmillaahi kariin waxaanan u mahadnaqayaa dadkii alaabtan ila soo bixiyey ila soo ururiyey soo gacan qabtee ahaa dadka iyagii qurba joogga ah uu dhashay oodweyne iyo intii kale islaamka ahaaba marka kulligiin idinkuna aad ba u mahadsantihiin haddaad aragtid waadhkan aan iminka dhex taagannahay 10 cisho ka hor lama soo geli karaynin ama waxba may oolba iminkana waad aragtaa suu qurux badan yahay furaasho wanaagsan gooyaal iyo bustayaal naloo keenay oo weliba aan ugu mahadnaqayno jaaliyadda reer oodweyne ee ingiriiska degan iminka waad arkaysaa inaa qofkii uu psychologicaliba uu bogsan karo markii halkan la keeno laakiin markii horeba marka halkan la keeno dhulkaanu siixin jirnayba way furaashamay oolin waxaaynu xafladan maanta waxaa inoo qabtay xildhibaan xaaji saliib cali ducaale oo ah xildhibaan rugli ku ah gobolka daadmadheedh ama oodweyne waxa uu ku soo dhowaynayey oo ku boorinayey guulaha ay gaadheen ciyaartooyga gobolka daadmadheedh ee hadday tahay orodo iyo hadday tahay kubadda cagtaba aa ka soo hoyseen ayuu xaajigu ku qabtay maanta inuu maxsuumadan ballaadhan ee uu xildhibaano iyo qurbajoog iyo ciyaartooy iyo maamul gobolba isugu keenkeelay waxaynuga mahadnaqaynaa xaajiga sida awalba caadada u ahaan jirtay bay xaajiga ma aha miduu imika bilaabay xaaji saliim inuu isboortiga gobolka daadmadheedh dhiso waxay u ahaan jirtay caadadiisa koowaad waxaa
kolley mahadda le maanta ciyaartooygiinnan sidaa aa u ciyaarteen hadday tahay akhlaaq hadday tahay edaab hadday tahay dulqaad waxay tahay mid mudnaanteeda leh waxaannu idinku boorinaynaa inaad ka sii kordhisaan waxaannu idinku boorinaynaa dulqaadkii ammaanintii laga samaysteen oo kale inaad ciyaaraha ku dhammaysataan oo kubadda waa qaadaysaan waan hubaa orodkiina imakaba waa qaadeen isaga horta waxaa inoo hadhay waxa weeye inaynu qaadno dhalintii goolalka tii akhlaaqda anshaxii baa inoo hadhay imanka laakiin kubad cid aynu isugu imanaynaa markaynu eegnay waynu ognaye ma jirto maanta koobkoodu daad midhal buu halkaa u yaallaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin halkan waxaan ka salaamayaa xildhibaanka magaciisa waabeeyo barasaabka gobolka daadmadheedh tiimanka xaaji saliim inamada ciyaartooyga isuduwaha tababarka dadweynaha kale nala jooga intaba salaanta islaamkan usoo diraya halkan waxaa kalan ka salaamayaa dadkii aan kaga imi magaalada london ee ahaa dadka daadmadheedh ee alaabta ii soo dhiibay inaan waxaan usoo dirayaa salaan gaar ahaaneed oo wanaagsan waxaa kaloo halkan ka salaamayaa layla saxardiid maxamed siciid oo aad iyo aad nooga timi faransiiska alaabtana london noogu keentay iyada iyo ninkeeda waan salaamayaa iyo labadeeda caruura inanteeda maxay ahayd tooy la yidhaahdaa inankeedana isaaq baa la yidhaahdaa caruurta magacyada alhina waa caruur faransiisa marka iyagana salaam gaar ahaan soo dirayaa waxay ii soo dhiibtay 26 shandadood 26 sharabaad aad baan ugu mahadsanyiin iyagoo faransiiska inta ka keenay London igu keenay iyo intii kale qurba joog ahayd ee ka soo jeeday daadmadheedh ee alaabta ii soo dhiibtay waxa kale lacag maanta soo dirtay $200 oo inaka tababaraha ah iyo orodka 200 tiri kala midba 100 tiri isii iyadana inanta magaceeda waxay tiri hay sheegin waxaana ka soo jeedaa gobolka daadmadheedh ilmo yar baana ka xanuunsanaya ilaahay waxaan u baryaynaa inuu caafimaad sareecan siiyo ilaahay uga baryaynaa markaas dawaa sida inta kalena sidaas aan uga sugaynaa aaminaha ayaantii hore waanu sheegnay wax noo soo dirtay $500 iyaduna way mahadsan tahay dadka kale aan sugaynaana way isgaranayaan soo degdega nala socdo soo shuba hadii ilaahay ka dhigo baalumba meesha kala wada dadkii kala dadkoodii waa u soo direen annaguna waan idin sugaynaa sidii markii horeba alaabta u soo ururseen oo soo bixiseen dhakhtarkii waa la furay waanu goglan yahay halkaasana ka arki doontaan dumarkii ku umulayna way yimaadeen jisa allah khayr baan taanaydi ka leenahay waxa kalaan mahadinayaa xaaji saliim xildhibaan xaaji saliim oo maanta munaasabadan isugu keenay waxa kalaan mahadinayaa xildhibaan waabeeyo oo isagu ilaa intii aanu bilownayba nala socday hawsheeda la socday waxaan u baahanahay in la garab taagan waxa kalaan mahadinayaa barasaabka oo isaguna aan markii naga hadhin oo ilaa ciyaartooyga ina gaadhigiisa ku soo qaaday waxa kalaan mahadinayaa saado oo qurba joog aad u qadiyaysan ah oo garoonka maalin walba nala joogta oo noo keentay dirays nooc walba leh waxa kalaan mahadinayaa ooduyna news cabdirashiid oo isaguna qurba jooga oo isaguna ina garab taagan mar walba inala joogo isaguna garoonka iyo meel kasta in munaasabad ku leenahay waxa kalaan mahadinayaa ciyaartooyga oo guushan weyneen halkan isugu nimi iyagu suurta galiyay guusha waxa kalaan mahadinayaa macallinkeena guusha isaguna guusha hoggaanka u ah ayaan mahadinayaa inta haddaan ku dhaafo waxaan leeyahay xaaji saliim wuxuu ciyaartooyga xildhibaan xaaji saliim ciyaartooygoodu ina bariga u keeni jiray direyska iyo qalabka isagaa soo barbaariyay ciyaartooygoodu way fadhiyaan ciyaartooygii horeoodu inay retire bay noqdeen oo kuwa imika iyagaa hogaamiya oo tababarayaal qaar baa tababarayaal ah qaarna maamulkay ku jiraan hadda xaaji saliim lama soo koobi karo horta wuxuu noo taray munaasabadan qadada uu maanta qabtay ciyaartooyga soo keenana aad buu ugu mahadsan yahay runtii qada sharaftan uu sameeyey xildhibaan xaaji saliim oo ahayd maanta mid weliba hilibgeela waxaan rajaynayaa waa hilibgeel marka la yidhaahdo hodheelada ugu qaalisan Hargeysa
waxaan rajaynayaa insha allah inuu noqoto mid quwad siyaada idiin samaysa xaajiga oo runtii xildhibaanka oo taariikhiyan aan sidan gobolka ugu yimid ciyaaraha aad u dhiirigelin jiray oo dareyskooda iyo kubadahooda iyo kooxaha oodweyne gobolka daadmareerba uu aad iyo aad u dhiirigelin jiray runtii maanta xulkii gobolka qadasharaftan ugu sameeyey waa mid taariikhi ah waanan uga mahad celinaynaa waxaan leenahay xaaji taariikhdaadu way qoran tahay shahaada sharaftiisii waan u diyaarinay waxaanu doonaynaa xaflad markiisa horeba aan ugu qabanno gobolka oodweyne daadmareedh oo aanu ku guddoonsiinno ciyaartooyda halkaa ay joogto insha allah waxaan rajaynayaa markii koobka qaadnay in shahaada sharaftiisaasna ku soo beegmi doonto isaga iyo xildhibaan maxamed oo laftigiisu soo raacay sanadkan xagga ciyaaraha dhiirigelinteeda sanadkii horena uu ku jiray insha allah sanadkan inaan koobka qaadno in gobolka daadmareer geyno ayaan idka rajaynaynaa dhallinyaradiinnan ciyaaro adagna way idku soo waajahan yihiin waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay inaad aad isku ilaalisaan nasataan ku hamidaan sidii aynu koobka u qaadi lahayn waan rajaynayaa waana idinka muuqataa raggeediina uu idinku jiraa insha allahu tacaala waa laydinka wada baqanayaa sidaa laydinka baqanayo waa inaad u wada jiidhaan qolooyinka idin hadhay qurba joogga halkan nala jooga waxaan ka rajaynayaa inay warbaahinta iyo gacanqabadka dhallinyarada ciyaartooyda ah ay ka gacan geystaan cid kastaaba ay u kacdo intana daawanaysa qurba joogga ahna waxaanu ka codsanaynaa reer daadmareed in ay soo dhiirigeliyaan ciyaartooydooda oo ay soo gacan siiyaan dhiirigelinta ciyaartooydu waa waxyaabaha guulaha lagu gaadho waa waxyaabaha koobka keena waxaanu rajaynaynaa sanadkan insha allahu tacaalaa in ay ahaadaan kuwo si qurux badan oo niyadsan oo qalbi furan oo dhiirigelin badan la siiyey inay ahaadaan taas ayay dhallinyaradu ku keeni kartaa idinkuna waxaa ku niyad samaanaysaan inaad hawshaa halkeeda ka wadaan xaaji saliimna waxaan leenahay aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa qadasharaftan aad noo samaysay xildhibaan xildhibaankii kalena maanta uu ku berber taagan yahay dhallinyarada ahaa wax idinka xurma jiraan gobolka waynu u dhannahay waxaan rajaynaynaa inaan guulaysanno xildhibaan xaaji saliim gudoomiyaha gobolka saacadoo ka wakiila qurbajooga degan ingiriiska gaar ahaan magaalada london ee jaaliyadda reer oodweyne dhammaan ciyaartooyga waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horrayn waxaan doonaya inaan u mahadnaqo ciyaartooyga ku ciyaaraya magaca gobolka daadmareer run ahaantii oo warbaahinta iyo dalkaba iminka si aada looga hadalhayo oo runtii muujiyey ciyaar aad iyo aad u qiimo badan oo soo jiidatay indhaha dadka nid baa igu yidhi waxaad moodaa telefishinadu niman idinla shaqaynayaan oo daadmareer dhaasan bay hayaan waxaan filayaa inay ciyaarta tahay ee aanay telefishinadu ay caadi yihiine inay ciyaarta tahay run ahaantii marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan kaloo doonaya inaan aad ugu mahadnaqo xildhibaan xaaji saliim oo ah xildhibaan xaaji saliim horta waa nin imaaraati ah haddana reer daadmareer ah oo kubaddana aad u jecel sidaa laga sheekaynaya waa ninkii barbaariyey tiimkii ugu horreeyey kubadda cagta ee gobolka daadmareer run ahaantii aad iyo aad buu u mahadsan yahay odayaal badan baa jira laakiin waa odayaal sportska jecel oo dhallinyarada jecel run ahaantii waana maalintiisii lama ilaawi karo run ahaantii aad iyo aad baad xaaji saliim u mahadsan tahay waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa saada bulbul runtii oo ka mid a hablaha qurbajoogga reer somalilan ee ka soo jeeda jaaliyadda daadmareed oo iyaduna hagarla'aan ah ugu shaqaynaysa ciyaartooygan isa soo barbar taagtay maalin walba telefoonka kula hadlaysa oo le maantana berrigana way ciyaarayaan maantana way ciyaarayaan dareyskiina ay guddoonsiisay aad iyo aad baad saada u mahadsan tahay waxaanu diyaargarayn doonaa adigana biladii aanu ku siin lahayn run ahaantii waxaan la qabaa inuu cambe run ahaantii xalayto markii tv-ga laga hadleeyey ama habeen horey ahayd run ahaantii dee garoonka wixii ka dhacay mas-uuliyaddii wuxuuna lahaa garsoorka wixii halkaa ka yimaada garsoorkaa lahaa waxaana laygu yidhi iminka guddidii garsoorku way soo saareen waxay dhahan goolkii wuxuu ahaa gool aan si cadaalad ku jirto u dhalan rigooriha laakiin wixii dambe laga qaban doona anu ma sii garanayo laakiin intaasay soo jeediyeen run ahaantii may ahayn laakiin wax beesha ballegubadle iyo ama dadka halkaa dega ku kooban qusaysa laakiin waxay ahayd garsoorihii unbaa dee ka mas-uulahaa iyo calamwalayaashii unbaa ku koobnayd arrintaasi hadiyo jeer dadkeena markay dee warbaahinta ka hadlayaan waxa laga yaba in hadalku la taraaro ama caadifadu la taraarto may ahayn waxay ama beel ama magaalo ama hawd ama wax kale ku shaqo leeyihiin taageerayaashana
way iska dhacdaa caadifadooda anuu reer burcaan hoo lama yaabnaba caadifada aadka u dheeraadka oo waayo annagaa lahaan jiray markaa run ahaantii lama yaabno waxaa halkaa fadhiya dee sidii hore looga dhawaajiyo macalin shakuur oo dee khabiira oo isagana maxay haytoy aan doonaya inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo waxaynu gu dhahan wadna khiyaamayseeno macalin shakuur baa kaxaysateeno waxaan moodnay bay dhahan nin reeroodu weyne wataan bahalko waa ka badin lahayn bay dhahan dee reeroodu weyne wataan markaa runtii shakuur isagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan aad ugu hambalyaynaya ciyaartooyga daad madheedh inaanay waxaa ka madax bannaan yihiin run ahaantii oo ay ciyaartooy isu xusha iyagu ay yihiin macallinkooda ku kalsoon markaa run ahaantii aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waan dhiirigelinaa waxaan ii rajaynaynaa ciyaar inay ku dhammaan doonto taageerayaashana waxaynu ka codsaynaa reer oodweyne iyo reer daad madheedh iyo reer geese iyo reer somalilandba inay taageerayaashii u hayeen ciyaartooygan oo ciyaartooy sumcad lelaa ciyaartooygan waa ciyaartooy wata iyagu taageerayaashooda run ahaantii oo turubuunku uu wada garanayo oo aan ku xidhnayn bacid aad iyo aad baa u mahadsantihiin waana idinla garab joogi doonaa maxay ahaatay taageerada waxaana ku soo dhaweynaya barasaabku runtii waa sidii laga dhawaajiyay waa barasaabkii berigii hore koobka sigay ee dee lambartuuga galay maantana daad madheer buu hogaaminayaa maanta waa inaad qaataa haddaad maalinta hore sigtay maanta waa inaad qaataa aad iyo aad daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii gaarka ahaa barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo muuse salebaan maxamed tan iyo intaynu barnaamij ka lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu